waxaan doonayaa runtii inaan la wadaago arintii dhacday maanta oo ahayd wax sharciga iyo caqliga ka fog waxaanu ahayn wafdi ka yimid dalka Turkiga una socday magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland annagoo halka kaga qayb gali lahayn xafladda caleemasaarka madaxweynaha la doortay diyaarad kale ayaa naga qaadi lahayd garoonka Aadan Cadde taas oo aanu haysanay tigidhadeeda markii aanu bondi baaskii helnay ayay xukuumaddu waxay soo saartay qoraal ay leedahay diyaarad kasta oo aadaysa Kismaayo waa in ay 24 saac ka hor ogolaansho soo weydiisataa aviationka ka bacdina qoraalkii saacada la soo saaray ayaa lagu fuliyay diyaaradii in lagu kansalo duulimaadkeedii halkaas ayaana lagu baajiyay safarkii wafdiga iyagu kamid ahaa oo ay ku jireen shacab weyne Soomaaliyeed oo u socday iyaguna Jubbaland dadkaas oo maaragtay shacab iska duruufaysan ama maaragtay noocyada kala duwan ee bulshada isugu jiray waayeel dhalinyaro iyo haween dabcan qofka safaraya waa fahmi kartaan waxaad kala garan kartaan qorraxda kuleelkeeda iyo qaabka lagu soo galo airportka dadkaas oo dib aad u fara badan kala kulmay wixii maanta meesha ka dhacay iyadana aad iyo aad baan runtii uga xunnahay si gaar ah waana ka tacsiyeynaa in shacabka aan loo aabayeelin aan la ixtiraamin aan maaragtay loo turin iyada oo maaragtay dawladdii iyo calankoodii maaragtay lagu dulminayo arintan meesha ka dhacday waxay ahayd غير qaanuun ah oo ka soo horjeeda qofka muwaadinka xorriyadiisa in uu xilligu doono safri karo maaragtay meesha doonana dalka uu ka aadi karo iyadoo aysan jirin wax dambi ah ama wax ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala oo lagu haysta aysan jirin in si maaragtay ula kac ah oo ku salaysan qiimeyn ama maaragtay rabitaan shakhsiyadaysan loogu xadgudbo qofka madax banaanidiisa oo cambaaraynayna waana ka soo horjeednaa wixii inta ka soo kordha oo maaragtay uu xisbiga go'aana ka qaatana waxaan jeclanahay inaanu dib idin kala wadaagno hadii Ilaahay idmo laakiin waxaanu kaliya rabnaa inaan idin sheegno xukuumadda dadka hadda jooga inay iska indhatirayaan dastuurkii ay dadkan dhigteen ay maaragtay ku wada joogeen ayna ku socdaan jid qardad jeexa oo keeni kara maaragtay runtii dhibaato iyo qalalaasa siyaasadeed oo laga yaabo inuu meel kale sii gaaro taasna waanu ka digaynaa hadii Ilaahay idmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.